بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داوديال kusoo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad si toos ah uga daawanaysaan channelkeena Shumac Media qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo si rasmi ah u shaacisay natiijada baaritaankii qaraxii xarunta gobolka Banaadir ee lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolkaasi ammaanka fila Soomaaliya iyo xafiisyada kale ee dawladda oo si aad ah loo adkeeyay kadib markii laga war helay arrimo xasaasi ah al-shabaab oo gobar 18 sano jir ah qarax ku dilay dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo hordhigay dawladda Soomaaliya dalab culus oo la xiriira qaraxii gobolka Banaadir Allah u naxariistay injineer Yariso oo garoon caan ah loogu magac darayo iyo ururka al-shabaab oo dib u soo celiyay xeelad hore ay qaraxyada ku fulin jireen iyo waliba xogo muhiim ah oo laga helayo weerarada al-shabaab ee magaalada Muqdisho ay la damacsan yihiin qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga Shumac Media u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa shaacisay natiijada baaritaan hordhac ah oo lagu sameeyay qaraxii 24 Juulaay sanadkan 2019 ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir war-saxaafadeed ay wasaaradda soo saartay ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ahaa mid ismiidaamin ah oo ay fulisay gabar ka shaqeynaysay xarunta isla markaana aragga la'ayd waxaa sidoo kale baaritaanka lagu ogaaday in gabadhaasi aragga la'ayd ay caawisay gabar kale oo baxsatay taasi oo iyadana ahayd kaaliyaha gabadha aragga la sidoo kale shaqaale ka ahayd xarunta wasaaradda ma shaacin magaca gabadha aragga la ay isqarxisay hase yeeshee warar hoose oo soo gaaraya channelka Shumac Media ayaa sheegaya in gabadha xarunta isku qarxisay lagu magacaabi jiray Basiire Cabdi Maxamed hase yeeshee waalidkeed u yaqaanaan Maryama Cabdi Maxamed qoraalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in labada gabdhood ee qaraxa fuliyay ay waqti isku dhow oo bil gudaheeda shaqada ka qaateen fasax isla markaana tageen xarumaha kooxaha argagixisada baaritaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada gabdhood aan loo baarin sidii uu ahaa nidaamka baarista xarunta gobolka wasaaradda ayaa shaacisay in dhowr qof loo xiray qaraxan ururka al-shabaab ayaa gabar 18 sano jir ah qarax ku dilay Allah u naxariistay waxa magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ku geeriyootay marxuum Kayf Ahmed oo ahayd gabar 18 sano jir ah isla markaasna xoolo dhaqato ku ahayd halkaasi Kayf ayaa ku geeriyootay qarax haleelay gaari dameer ay waday waxaana sidoo kale dhintay dameerkii iyadoo uu burburay gaarigii ay waday marxuumad Kayf ayaa ku soo socotay gudaha magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna soo aroortay biyo sida ay sheegeen dadka deegaanka shalay ayaa sidoo kale duuleedka magaalada Awdheegle laga maqlay qaraxa gaari nooca xamuulka qaada oo raashin u waday gudaha degmada oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada militariga Soomaaliya ugu yaraan 3 qof ayaa qaraxii shalay ku dhaawacmay waxaana sidoo kale ku baaba'ay raashinkii ay wadeen oo u rarnaa ganacsatada Awdheegle gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inay al-shabaab qaraxyadaasi ku aaseen wadooyinka soo gala Awdheegle oo tan iyo 2015 ka maqneed gacanta ciidamada dawladda Soomaaliya dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa dalab culus hordhigay dawladda Soomaaliya oo la xiriira qaraxii gobolka Banaadir dawladaha Mareykanka iyo Britain ayaa madaxda Soomaaliya ka dalbaday inay soo bandhigaan oo ay shacabka Soomaaliyeed iyo adduunyada kaleba la wadaagaan xogta qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka socota taliska ciidamada Africom ee Mareykanka oo yimid Muqdisho ayaa madaxda dawladda Soomaaliya ka dalbaday arrintan waxayna la wadaageen baaritaan ay ka sameeyeen weerarkii xarunta gobolka Banaadir oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof oo mas'uuliyiin ah oo ku jiray gudoomiyihii gobolka Banaadir Allah u naxariistay injineer Yariso sidoo kale dawladda Britain ayaa madaxda dawladda Soomaaliya kala hadashay xogta qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxayna madaxda qaranka u sheegtay in ay aad uga niyad jabtay goobta uu qaraxa ka dhacay xilliga uu dhacay iyo dadka ku dhintay isla markaana ay walaac badan abuurayso saraakiil ka tirsan waaxda difaaca UK iyo safaaradda Britain ee magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo la wadaagay xog dhameystiran oo weerarka ku saabsan waxay sidoo kale dalbadeen in si degdeg ah loo baahiyo wararka qaraxa ku saabsan haddii ay dhici waysana ay Britain baahin doonto weerarkaas baaritaankii ay ka sameeyeen
arrimahan ayaa waxaa laga yaabaa in sabab u noqdaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qasabto baahinta xogta qaraxa oo la aaminsan yahay in ay ku lug yeeshaan mas'uuliyiin amni iyo kuwa gobolka Banaadir ka tirsan. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xubnaha ka socday dowladaha UK iyo USA u ballan qaaday inay soo bandhigi doonaan xogaha iyo dadkii ka dambeeyay weerarkaasi. Ammaanka filla Soomaaliya iyo xafiisyada kale ee dowladda ayaa si weyn loo adkeeyay. waxaa aad loo adkeeyay ammaanka xafiisyada dowladda Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho marxuum injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoonada golaha baarlamaanka dalka ayaa aad loo adkeeyay, waxaana lagu amray ciidamada inay baaraan qof kasta oo shaqaalaha ka tirsan oo shaqada soo galaya. sidoo kale waxaa aad loo adkeeyay ammaanka xafiisyada wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya, maxkamadaha dalka iyo goobaha kale ee muhiimka ah. waxaana furayaashii laga qaaday qaar ka mid ah dadkii hayay furayaasha xafiisyada wasiirada. sidoo kale booliiska ayaa soo rogay in la baaro dhammaan shaqaalaha iyadoo laga digay inaan qofna baaritaan la'aan uusan galin xarumaha dowladda. janaalka Shumac Media ayaa dad kala duwan oo la hadlay waxay xaqiijiyeen in maalmihii la soo dhaafay aad loo adkeeyay ammaanka, waxaana sidoo kale la bilaabay in la baaro gaadiidka gudaha wasaaradaha iyo xafiisyada kale ee dowladda lagu baakimo kuwaas oo ay wataan dadka mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda ka tirsan. arrimahan oo dhan ayaa la sheegay inay sabab u tahay weerarkii ka dhacay aqalka dowladda hoose oo la xaqiijiyay inuu ahaa ismiidaamin islamarkaana ay fulisay haweeney ka tirsaneed agaasimayaasha gobolka Banaadir ayna ka qayb qaateen dad ka tirsan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya. arrintan ayaa ciidamada ammaanka lagu amray inaysan ka baaqsan, sidoo kalena aysan aaminin qofna oo ay adkeeyaan ammaanka, qofkii diidana uusan soo galin xarumaha dowladda Soomaaliya, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii la hadlay janaalka Shumac Media. madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxyaabaha lagu arkayo ka mid ah in aad loo baaro gaadiidka galaya aysan markii hore dhici jirin, gaar ahaan waxaa lagu baarayaa baraha koontaroolada ee sayidka iyo xawataako iyo ceelgaabta oo ah saddexda waddo ee laga geli karo xarunta filla Soomaaliya. daawadayaal intaasi waxay noogu eg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad si toos ah uga daawanaysaan channelkeena Shumac Media. ha iloobina inaad subscribe, like, comment intaba aad ku caawisaan channelka si aad ula saaxiib noqotaan oo aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha ka qarsoon iyo xogaha